بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. walaalayaal waxaanu ka hadlaynaa tobanka dardaaran oo ninka la yihahdo Stephen Covey uu leeyahay oo horumarinta bani aadamka ah. Stephen Covey wuxuu qoray kitaab aad looga daba dhacay oo la yiraahdo toddobada caadadood oo dadka aadka wax u fuliya, wuxuuna raaciyay kitaab kale oo ah caadada sideedaad. marka kitaabka caadada sideedaad ay wuxuu ku qoray tobanka kan dardaaran. waa toban dardaaran oo cajiib leh oo la yaab leh. tobanka wuxuu ugu hormariyey isagoo arrintaa ka hadlaya, dadku ma aha kuwo u fakera si caqli gal ah, mana xiiseeyaan waxaan ahayn dantooda. si kastaba ha ahaatee iyaga jeclow. tan labaad wuxuu yidhi, haddii aada wanaag samaysid waxaa lagugu shaabadaynayaa inaad danaysto tahay, wax u qarsoon yihiin. si kastaba ha ahaatee samay waxa wanaagsan. haddii aada guulaysato, marka saddexaad wuxuu yidhi, haddii aada guulaysato waxaad yeelanaysaa saaxiibo beenbeena iyo cadow dhab ah. si kastaba ha ahaatee ku dadaal inaad guulaysato. tan afraad wuxuu yidhi, wanaagga aada samaysid maanta waa la iloobi berri. si kastaba ha ahaatee samay waxa wanaagsan. tan shanaad wuxuu yidhi, inaad noqoto mid runsheeg badan iyo mid uu warkiisu cad yahay waxay kuu soo jiidaysaa in wax lagaa sheego. si kastaba ha ahaatee noqo mid runsheeg badan oo warkiisu cad yahay. tan lixaad wuxuu yidhi, ragga iyo dumarka halyeeyada ah oo leh aragtiyada sare waxaa dhici karta inay hor istaagaan waxyaalaha ay rabaan inay sameeyaan. rag iyo dumar aan qiimo lahayn oo aada u caqli yar. si kastaba ha ahaatee yeelo aragtiyo sare. 7, dadku waxay jecel yihiin kuwa tabarta daran, waxayse dabagalaan kuwa isweyneeya. si kastaba ha ahaatee u dagaalan kuwa tabarta daran. 8, waxa aad ku bixiso dhismihiisa sanado badan waxaa laga yaabaa inay ku burburaan si dhaqso leh. si kastaba ha ahaatee noqo mid wax dhisa mar kasta. 9, dadku waxay aada ugu baahan yihiin in la kaalmeeyo, hase yeeshee waxaa laga yaabaa haddii aad iyaga kaalmaysid inay ku weeraraan. si kastaba ha ahaatee kaalmay iyaga. tan 10, haddii aad dadka siiso waxa aada ugu wanaagsan tahay ood kartid waxaa dhici karta in qeyb iyaga ka mid ihi kugu abaalgudaan xumaan. si kastaba ha ahaatee si iyaga waxa ugu wanaagsan ood kartid. bal u fiirso walaal, ninkan aan muslimka ahayn hadaladiisa iyo xadiiska nabigeena calayhi salaatu wassalaam uu nagula dardaarmay haddii qiyaamuhu kaco oo midkiin uu gacanta ku haysto tallaal, ha ku suro dhulka ama ha ku beero. mana uusan oran nabigu calayhi salaatu wassalaam ha la dhaco sujuud ilaa uu ka dhinto, ee wuxuu yidhi waxa beero ilaa waqtiga noloshiisa ugu dambaysa. intaa waxaa ka fahmaysaa xikmadan faraha badan oo 10 ah oo ninkan Stephen Covey uu ku soo koobay tajrubada iyo khibradda uu lahaa inay yihiin mid qofka anfacaya kuna tusaya. ha eegin dadkaad wax u samaynaysid ee waxaad eegtaa waxa aad samaynaysid. waana xikmad weyn oo lagu miisaami karo dahab. intaas ayaana kusoo koobaynaa arrinteena. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.